السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان waxaan ku eegayaa hablaha reer galbeedka ah ee indhaha buluuga ah leh da'da lagu guursan karo ee sharcigoodu u ogol yahay. hooyo Soomaaliyeed iyo aabe Soomaaliyeed oo carruurtoodii soo koriyay kadibna meeleeyay oo reer u dhisay ninka dhaleecaynaya adeer wuxuu den leeyahay anu ma garanayo aan ka ahayn inuu ninkaasi uu ku yahay cadow ummadda Soomaaliyeed. dadka ugu badan ee baraha bulshada ka qaylinaya waxa ku jira dad wadamada galbeedka ku nool marka wadamada galbeedka wadada maqasho wadamada galbeedka ma maqasho waa iska Mareykan baa toora inta kale waxa weeyaan waa iska ku daba fayla marka wadanka Mareykanka bal gabadha da'da lagu guursan karo oo lagu guursan karo iyo sharcigooda wuxuu yahay baynu eegaynaa oo waliba ah meesha dadka ugu badan ee qayladan iyo qaylinaya cabaadaya ay ku nool yihiin haddii aad doonayso inaad wax bedesho waa inaad ka soo bilowdo meesha aad adigu ku nooshahay oo aad sharciga ka haysato oo aad ma taqaanaayay aad sharciga ku haysatay aad ka mid tahay aad u dhaaratay sharcigoodii aad u dhaaratay inaad difaacayso halkaas weeye inaad ka soo bilowdo kadibna aad u gudubto meelaha kale aad leedahay waxa weeyaan aad rajaynayso inaad ka hirgeliso ma taqaanaayay waxa aad doonayso laakiin adoo gurigaagii ololayo ta adeer guri kale ma garanaysaa inaad taado dabba ka soo daminaya waa wax soconaya ma shaqeeyo it doesn't work like that. so marka sharciga Mareykanka ayuu neegaynaa iyo gobolada Mareykanka iyo maamul goboleedyada da'da gabadha Mareykanka indhaha buluuga leh ma hadda gabadha indhaha buluuga leh cad ma kama hadlayno waxaan kale gabadha cad indhaha buluuga leh da'da lagu guursan karo rag badan oo Soomaaliyeed oo aan ogeyn baa jiro oo taqaan halkaas arrimo badan ma taqaan qalanjooyin badan ay kaga lumeen ayaa jira marka let's get to the da'da lagu guursan karo gabdhaha qalanjooyinka sida ka muuqata qariiradan Mareykanka gobolada ugu badan oo ah kuwa buluuga ah light buluuga ah waxaad gabadh ku guursan kartaa 16 jir hase haatee waa in ay gabadhu ku ogashahay waalidkeeduna ku ogol yahay wax kaliya aad u baahan tahay waxa weeyaan waalidkeedu ay warqad ogolaanshaha ku qoraan sidaas ayaad ku guursan kartaa iyaduna ay ku rabto tabcan kuwa casaanka ah iyagu horta wax limid ah maalba iyagu waxa weeyaan waa arrin debate u baahan dood u baahan laga doodo u baahan gobolada kale sida gobolka Farmaaad 13 jir baad ku guursan kartaa wiilkuna 14 jir ku guursan karaa marka sharcigu ma oran gabadhu inay inaad ka weynaato iyo inaad ka yaraato midna ma oran yeesay weyn ayadu ku doonayso waalidkeeduna uu ku doonayo marka muhiimad waa inaad waalidka iska iibisaa soo rag badan hawl waa u taala ma garata gobolkan Utah ka bilowda UT-da ka bilowma isagoo horta waa ku ka horeeya isagoo horta waa nimanka waxa leedahay Mormons baa leedahay iyagu ma banaxaan ba iyagu gabadho yar bay wax iskaga daraan ba qolyaha ay ku sheegaan oo yadaan waa qolyaha waxa weeyaan muuminiinta weeyaan oo wayna lagu daraa iyagu waa 10 naag u guursan iyo muuji almost like limit ma bale marka ma aha wax kaliya oo Soomaalida ku kooban ma aha iyo wax Soomaalida lagu cambaareeyo marka dadka qaylinaya leh Soomaaliya waa kan oo Soomaalida magaca ka dilaya waxay ku taagan yihiin meel kuma taagna meel cilla bay taagan yihiin waxay warbaahinta Mareykanka bay soo dhageysanayeen bay laakiin waxa dhulka gudaha on the ground ka jira war ma hayaan marka waa marka Soomaalida
ceebta iyo canaanta laga daayo oo waxa weeyaan canaanta laga daayo waalidiinta u soo dadaalay carruurtooda korisaday haddana u gartay inay meelayaan oo noloshooda meesha ay way wanaagsan tahay ku jihaynaya midda kaleeto aabbaha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed sida aan gabadhoodu laantood aanu meher u qaban karin ba waxay xaq ugu leeyihiin inay gabadhooda iyo wiilkooda ay meeshii ay u arkaan inay dan ugu jirto ay u jeeyaan oo ay ku yaadan aabbe ninkaas inay hebel oo ninkaas inay hebel oo ninka reer hebel oo la yaqaan oo haddii wax xumaanay dhacdo meel ay nuur raacano iyo cid inaga qabata aynu helayno ba aabay quraxay ba tani ka soo gashay ka war ya inuu ku yiraahdo waalidku ku yaadaan xaq bay ugu leeyihiin hadday gabadhooda ka ogolaato oo taada aabay waa arrin wanaagsan ma sha Allah waxa weeyaan waa loo guurinayaa annagoo soo dadka Soomaaliyeed waa ugu farxayaan waana arrin wanaagsan maaha wax ilaahay waa wax ilaa weligoodba soo jiray marka maaha wax waa inaad ninku gabadhiisa meel uu kaga warayo oo ku kalsoon inuu mariyo waa arrin aad u wanaagsan maaha inay gabadhu iyadu ma taqaanaayay intuu mid alkulusta ama halkan koolada cabbiya soo kaxaysato iyada haddana la yiraahdo haye waaye marka lagu darana berri ka bacay inta laba ka dhalo meesha saaka arrin kaga dhaqaaqo waa taasaa in laga dhiidhiyo ah oo laga qayliyo ah laakiin in ma taqaanaay oday aabbe Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed oo gabadhooda u dadaalay ama wiilkooda u dadaalay in xumaan iyo ma taqaanaay propaganda beena iyo muraayado Mareykan oo aan jirin lagu ma taqaanaay reer galbeed oo aan jirin lagu fiiriyo wax kasta lagu eego waa arrin aad ma aha wax dadka Soomaaliyeed qabata dadka Soomaaliyeed dhaqan bay leeyihiin waa dad ma taqaanaay madax bannaan go'aamadooda iyagu ma taqaanaay iyo masiirigooda iyagu ka tashanaya waxa weeyaan marka dadka noocaas ah ma taqaanaay dhibaatada dadka Soomaaliyeed ku haya waa in ma taqaanaay cod dheer laga soo horjeesto oo ma taqaanaay lagu dhaleeceeyo hagardaamada iyo dhibaatada dadka Soomaaliyeed ku wada